السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام halkan waxaynu ku qaadanaynaa topic about love, mowduuc ku saabsan jacaylka. Mowduucaas oo waxyaabo badan ka taabanaya dhanka jacaylka oo ka siinaya jacaylka labada qaybood ee loo kala qaybiyo. halkaas oo wiilka mowduucan dhexdiisa ku hadlaya ee mowduucan jacaylka soo jeedinaya uu kala saaray jacaylka laba nooc oo ah natural love and relationship love. jacayl natural love oo ah jacayl dabiici ah oo si dabiici ah u dhacay isagu jacaylka dabiiciga ah, and relationship love iyo jacayl xidhiidheed oo hadaf dheer laga leeyahay in uu guda galo. Although I have not got experience in love, inkastoo I haven't aanan ka haysan a good experience khibrad wanaagsan in love jacaylka, because waayo I am too young to know such things. aad ayaan u yarahay to now inaan ogaado such things, waxyaabahan oo kale, shayada noocan oo kale. I would like, waxaan jeclaan lahaa to put forward, inaan soo gudbiyo. Put forward waa soo gudbin. My idea, fikradayda. Please, fadlan buuri, fadlan. You can correct me, waad isixi kartaa if I misunderstood, haddii aan qalad u fahmay. Misunderstood waa qalad u fahmid. The meaning of love, micnaha jacaylka. The meaning, micnaha of love, jacaylku leeyahay. But laakiin, if I am right, haddii aan saxanahay, you have to, waa inaad applaud me, ii sacabiso. Applaud marka waa u sacabin. At the end of my topic, dhammaadka mowduucayga waa inaad ii sacabiso haddii aan saxanahay. haddii aan qaldanahayna waa inaad ii saxda buu yidhi. If I try, haddii aan isku dayo to define, inaan qeexo the meaning, micnaha, an explanation of love, iyo sharaxaadda jacaylku leeyahay. Explanation marka waa sharaxaad. It can be divided, waxaa loo kala qaybin karaa. Divided marka waa kala qaybin. Into two main parts, laba qaybood oo muhiima. Main parts waa qaybaha ugu muhiimsan. Natural love, jacayl dabiiciya, and relationship love, iyo jacayl xiriir ku salaysan. To begin with, haddii aan ku bilaabo, begin with marka waa ku bilaabid. The natural love, jacaylka dabiiciga. It is a love, waa jacayl, which you love your parents, which kaasoo you love aad jeceshahay your parents, waalidka. But the one, laakiin ka, which is based on, ku salaysan. Based on marka waa ku salaysnaan. Relationship, ka ku salaysan xiriirku. It is quite different. It is isagu quite different, wuu ka duwan yahay, waxoogaa buu ka duwan yahay from the previous one, kii hore. Previous markaa waa kii hore oo ka hore markaa sheegaya waa jacaylkii dabiiciga ahaa. Because waayo this love, jacaylkanu, is between two persons, waxa uu dhexeeya between two persons, laba qof uu dhexeeya. Who have decided, kuwaasoo have decided, go-aansaday, to lie, in ay markaa dhigaan, inay sameeyaan the foundation, aasaaska of their marriage, guurkooda. However, si kastaba ha ahaatee, this love, jacaylkani, can be improved. Can be wuxuu noqon karaa improved, mid la horumariyo, mid horumari kara buu noqon karaa. And can lead both lovers, can lead wuxuu ku hogaamin karaa both lovers, labada qof ee isjecel, to a happy and enjoyable life, nolol farxad iyo raaxa leh. Happy waa farxad, enjoyable raaxa leh. markaa nolol farxad iyo raaxa leh buu ku hogaamin karaa jacaylka ah, jacaylka relationshipka ku dhisan buu ina yidhi. And their dreams, riyooyinkooduna come true, waxay noqdaan kuwa rumooba. But laakiin, if the two persons, haddii labada qof don't eye to eye,
aanay isha isku haynin eye to eye waa isha ku hayn haddii aanay isha isku hayn micnaheedu waxa weeye haddii aanay wada socon kala war haynin their love jacaylkoodu may turn into waxa laga yaabaa inuu isu bedelo turn into marka way isu bedeli turn into inuu isu bedelo hatred nacayb inuu isu bedelo baa laga yaabaa haddii la kala war hayn waayo la isxidhiidhin waayo the sweet macaankii markaa may turn into sour waxa laga yaabaa inuu dhanaan isu bedelo marka macaankii ay jacaylka ku hayeen inuu isu bedelo dhanaan baaba laga yaabaa buu ku leeyahay haddii la kala war hayn waayo si wanaagsan marka la isu xidhiidhin waayo inuu leeyahay and the smile dhoola cadayntii farxaddii may turn into anger waxa laga yaabaa inay isu bedesho cadho and their meeting kulankooduna becomes inuu noqdo infrequently mid aan joogto ahayn frequently maxay ahayd joogto soo maaha infrequently aan joogto ahayn both lovers dhammaan labada dhinacba marka labada qof ee isjecelba can be blamed lama eedayn karo markaa oo labada qof eeda ma wada yeelan karaan if the person haddii qofka whom you love ka aad jeceshahay whom markaa waxay ka timi who oo whom waa marka uu object yahay ee ficilku ku dul dhaco markaa waa qofkii muxuu yidhi if the person haddii qofka buu yidhi whom you love aad jecesha marka adaa jecelo objectgii markaa isagu weeye changes uu bedelo his or her his maskaxdiisa amaba her maskaxdeeda and gives you uu ku siiyo negative answer jawaab diidma ah marka your life noloshaadu ma instantly change si degdeg ah inay isu bedesho ayaa dhici karta marka qofka haddii uu jawaab diidma ku siiyo oo jacaylkii kugu gacan sayro marka qofkii xiriirka aad lahaydeen waxa dhacaysa buu markaa ina leeyahay in noloshaadii si degdeg ah markaa isu bedesho you may start waxa laga yaabaa inaad bilowdo lack of appetite abateed daro abateed waynaga inagu dhahay laakiin halkan appetite baa lagu dhawaaqaya abateed daro inaad bilowdo baa laga yaabaa ama teedkuba kaa xumaado buu kuleeyahay marka jacaylka lagaaga baxo and you may feel waxa laga yaabaa inaad dareento grief murugo all the time waqtigoo dhan and later marka dambana these problems dhibaatooyinkani may cause waxa laga yaabaa inay koos-gareeyaan keenaan death dhimasho geeri mawduucana waxaynu ku baranay in jacaylku kala yahay natural love and relationship love marka halkaa waxaynu ka faa'iidnay xogo badan oo ku saabsan jacaylka mawduucii ku saabsanaa jacaylkuna halkaa ayuu inoogu joogayaa waxaanan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu